waatahay dawladda waxaan wanaagsan dawladda midkasta joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga wararka dawladda ku soo qaadan doona Cabdullaahi Xasan Maxamed ku soo biir hada laga yaabay muuqaalka la garab sheegay maxkamadda galmudug waa sidee xiisad culus oo ka taagan deegaanada Puntland iyo ciidamo isku hor fadhiya gobolka Bari qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso la ayaan idinku haynaa barnaamijka bandhigga wararka oo inta badan ka daawataan waa TV fadlan daawada hadaad ku cusub tahay baraha aan ku leenahay bulshada ku soo biir channelka subscribe noo saar muuqaalka la garay oo sheegay madaxweynihii hore ee koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa waxa uu sheegay in aysan waxba ka jirin wararka been abuurka ah ee sheegaya in isaga iyo Xasan Sheekh Maxamuud uu wada hadal uga socdo magaalada Nairobi loona diray ergo culus oo ka socota fila Soomaaliya wararkan oo toddobaadkii la soo dhaafay si weyn loo hadalhayay ayaa waxaa beeniyay xafiiska madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen oo uu sheegay in uusan jirin wax arrintaasi ku saabsan ama dib u heshiisiin ah oo ay ama wada hadal ah oo ay fila Soomaaliya iyo aadan madoobe midna ay wada yeesheen waxa uu sheegay in isaga halkii ay u joogtay fila Soomaaliya ay ku kala tageen ay wali u taagan tahay uuna taagan yahay in uu gacantiisa uu ku soo celiyo koonfur galbeed qodobadaas oo dhan ayaa ku eegi doonaa barnaamijkeena bandhigga wararka waxa la falanqeynaya saaxiibkay oo isagu qodobadaas oo dhan la socday ishana soo mariyay wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya soo dhawow marka hore bal waxa looga warantaa marka hore warka uu soo saaray Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen maxaa uu ka dhigan yahay muxuuse la socotay maalmihii ugu dambeeyay waxaa jiray inay dowladda federaalka ay Soomaaliya xooga laga helayay iyo siyaasiyiin reer koonfur galbeed ay muujinayeen in la bilaabay qorshayaal cusub oo villa Soomaaliya ay ku doonayso inay mar kale ku soo gacan geliso Laftagreen iyo soo kale taliya shub iyadoo loo marayo sifo wada hadal ah oo la doonayo in xaaladda koonfur galbeed jiha kale loo yeelo taad la socota dowladda federaalka ee Soomaaliya halkaas waxay geysay hogaamiyaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo weli maamulkii oo dhammaystiran aan halkaas soo yegleelin waxaana soo tarayay muddooyinka ugu dambeeyay culaysyo xoogan oo qabsanayay maamulkiisa si marka taas loo yareeyo ayay bilaabeen madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya sida xogta aan ku helayno iyadoo la dhexmarayay siyaasiyiin reer koonfur galbeed in arrinta koonfur galbeed hoos loo dhaqo laakiin Laftagreen si cad ayuu arrintaas u beeniyay in arrintii wada hadalkii ayaa fashilmay marka hore ayay xaaladdu sida loo sheegayso u jirin wuxuu sheegay inaysan jirin wax wada hadal ah oo isaga iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya dhexmaray arrintuna ay weli taagan tahay maalinta ka soo raacay diyaaradda magaalada Baydhabo oo u soo dhoofayay Nairobi halkii ay taagneed waxaana uu sheegay weliba in looga sii daray oo koonfur galbeed oo ka soo tegay maanta halka ay ka jiraan dad aan daneynayn danaha koonfur galbeed sidaas daraadeedna ilaa inta laga helayo danaha koonfur galbeed oo sii wadi doonaa si cadaadiska oo ku hayo maamulka hadda xilligan halkaas ku sugan waa gartay ma ka hadlay hadda xaaladda koonfur galbeed ay ku jirto iyo waxa uga qorshaysan ciidamadiisa jooga duleedka magaalada Baydhabo wuxuu sheegay inay jireen maalmihii ugu dambeeyay saraakiil iyo askar badan oo ka imaanaysay dhinaca dowladda federaalka ee Soomaaliya oo u soo wareegaysay dhinaca dhankiisa wuxuuna sheegay inay taasi ku timid kalsooni ay ku abuureen saraakiisha halkaas ku sugan wuxuu sheegay in dhammaan askarta ku sugan gudaha magaalada Baydhabo ay duleedka imaan doonaan kadibna iyagoo doonaya wasoo hadalka u dhigay xornimadii iyo dib u soo celintii badbaadada koonfur galbeed inay mar kale ku wada laabo doonaan gudaha magaalada Baydhabo laakiin xilliga hadalkaas uu sheegayo waxaa halkaas markii ugu horeysay wada ka furantay dhinaca Laftagreen waxaana ka soo goostay taliye lagu magacaabo Mustafa Baaqow iyo askar kale oo watay iyo saraakiil aan la soo bandhigin guud ahaantoodna waxaa la sheegay inay u soo wareegeen dhinaca dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo soo kale dhinaca dowlad goboleedka koonfur galbeed Sheekh Aadan Maxamed Nuur wuxuu bilaabay shaq cusub oo la soo baxay taasoo ballanqaadyo ku sameynayo inuu darajo ka siin doono dhinaca dowladda federaalka ee Soomaaliya shaqooyinkooda dib loogu soo celin doono sidaas daraadeed hadda ay wado cusub oo dagaal cusub u furmo mar kale
laftigreen iyo sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe. waa gartay dagaalka koonfur galbeed Soomaaliya weji kale ayuu yeeshay ma isdhihi kartaa markaad eegto propagandada iyo wararka sida loo abuurayo markaad eegto dagaalkan cusub hadda aadan madoobe uu bilaabay iyo inuu kala furfuro kooxdii cabdicasiis xasan maxamed laftagareen inuu dagaalku weji kala yeeshay ma u eg tahay? si guud haddii loo eego horta xaalku wuxuu u muuqdaa maalinta ka dambeysa mid aan muujinaynin ififaalo nabadeed, aan sidoo kale muujinaynin ififaaladii dib loogu midoobi lahaa ama dib ay isugu fahmi lahaayeen siyaasiyiinta kasoo wareejeeda deegaanadaasi koonfur galbeed. saad og tahay sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe rabitaan reer koonfur galbeed kumausan imaanin halkaas, gaar ahaan siyaasiyiintu aad ayay uga soo horjeedeen. xiisadu inay jaha kale yeelatana waxay ku caddahay waxyaabaha la yaab kale oo si weyn dadka deegaanka uga anfarideen iyo waxaa kamid ah in laga yaabo gelinka horena inay askari kasoo xarwatay dhinaca laftigreen, gelinka dambena ay askar kale oo ka timid dhinaca koonfur galbeed baydhabo ku sugan ay xagga u wareegto. xaaladdu waxaad moodaa inay kusoo aruureyso la urbixi. guud ahaana siyaasiyiintii koonfur galbeed ayaa wada eeganaya bal sida ay kusoo kala haraan kubadda ay wada ciyaarayaan sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe iyo sidoo kale cabdicasiis xasan maxamed laftigreen. xaaladuna waxaad moodaa in propagandadii hadda ay ka xoog badatay dagaalkii tooska ahaa. maanta saad og tahay afhayeenka hore ee koonfur galbeed iyo saraakiil kale ayaa waxay bilaabeen inay dhaqdhaqaaq ka sameeyaan deegaano dhowra oo ka tirsan koonfur galbeed, waxayna abaabul xoogan ka wadaan duleedka baydhabo. deegaano horle ayay tegayaan, waxayna isku dayayaan siday u kasban lahaayeen ciidan cusub iyo dad cusub oo qayb kala noqdo howlgalka ay baydhabo mar kale ku himlinayaan. galmudug maxaan ka ognahay hadda xaaladeedu iyo wejiga ay gashay? galmudug saad la socotay cabdikaari qoorqoor waa kii waqtigu ka dhamaaday, naasmuujintii siyaasadeed oo u sameeyey xasan sheekh maxamuudna isna waa ka dhamaaday. aakhirkiina waxaa loo diiday waqti dheer oo lasoo wada jiitamayay inuu noqdo murashaxa madaxweynaha ee matalaya xisbiga JSP oo qeybta ka ahaa. saa la socotay 4 maalin ka hor ilaa 5 maalin ka hor halkaas waxaa gaaray taliyaha hay-adda nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka. 3 maalin 4 maalin ay wada shirayeen, go-aano ayaa la qaatay. kadibna xamse cabdibarre wasaaraha dalka ayaa halkaas u tegey. aakhirkiina waa lasoo debangeliyey arrintaas. qoorqoor hore ayuu u cadaystay inuu isaga haray dhammaan xilliga kan doorashada la doonayo deegaanada galmudug in laga sameeyo. haddii halkaas laiskala soo gudbana waxaa qorshaha hadda yaalla uu yahay maanta waxaa fadhiistay guddiga fulinta JSP. kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho ayayna ku go-aamiyeen in murashaxa madaxweyne sanada 2026-2031 inuu noqdo liibaan axmed xasan oo saad og tahay ahaa nin ganacsadaha ganacaan kuwa khaadka keena dalka ayaa loo ogolaaday. hadda wuxuu jiraa magaalada dhuusamareeb oo maalintii shalay uu tegey oo halkaas ayuu kula kulmay ra-iisul wasaaraha iyo axmed cabdikaariye iyo mahad maxamed salaad. intaba waxaad moodaa hadda arrintu dhinacay u dhacday JSP dhankeeda. axzaab badan ayaa tartanka geli doonta, laga yaabo inay culays lasoo saaro siyaasadeed, laakiin sida iyagu isku dayayaan waxay doonayaan sidii baydhabo oo sheekh aadan maxamed nuur loo geeyey markaana in liibaan axmed xasan loo geeyo magaalada dhuusamareeb. sida muuqatana isku dayahoodii xooganaa horey ayay ahayd mar hore loogu dhawaaqo liibaan sida ay dowladdu ay ama xisbiga xisbilxaakimka laga maqlay, laakiin waxaa caqabad ku noqday qorqoor oo markaasi aan weli isdhiibin, mahad salaad oo markaas raadinaya naftarkiisa. laakiin hadda way xaqiiqowday in liibaan lagu tijaabiyo bal xisbiga JSP markan inuu 5 sano soo socoto uu hogaamiyo deegaanada galmudug. liibaan maxaa ka naqaanaa marka nin noocee ah? liibaan waa nin halka afin waa nin ganacsado ah oo reer miyiga oo kasoo jeeda gaalkacyo. saad og tahana nimankaas reer midowgaahi ilaa 5 jeer ayaa madaxweyne markii lixaad ayaa la sameynaya galmudug. saad og tahay oo hore 3 jeer hore miya 4 jeer hore waxaa qaatay reer gaalkacyo ayaa qaatay hogaanka galmudug. saad og tahay magaalada gaalkacyo intii ay maamulka ku shaqeynaya galmudug waxaa halkaas ku sugnaa oo madaxweyne ka noqda caalim iyo cabdiqaydiid isagoo weli hogaanka galmudug haya ayaa la isugu yimid magaalada cadaado sanadii 2026 ilaa dhuusamareeb ayaa la isugu yimid. waxaana markaas ka jiray deegaanadaas maamulka ahlu sunna, maamulka ximan iyo xeeb iyo maamulka galmudug. intaas kadib waatii lagu midoobay oo loo soo wareegay cadaado. halkaana waxaa lagu doortay cabdikariin xuseen guuleed. haddana xaaf ayaa ku xigay. macnaheedu waxay tahay 3 qof oo siyaasiyiin ah ama 4 qof oo siyaasiyiin oo reer gaalkacyo ayaa hore usoo noqday. marka waa deegaan looga bartay inay marka hore liibaan meesha kusoo jeedaan
inay horta hogaamiyaasha galmudug ay noqdaan. aslan marka laga hadlayo magacan iyo maamulkani wuxuu aslan ka yimid dhinaca iyo gaalkacyo. liibaan shakhsiyadiisa waa nin ganacsada sida caadiga marka hore ganacsi caadi uu ku jiri jiray, laakiin waayihii dambe waxaa la sheegaa inuu ahaa nin aada lacag fiican uga helay dhinaca jaadka oo aada uga ganacsanayay. wuxuuna kamid ahay sidoo kale guddigii doorashooyinka madaxa banaanaa ka shaqeynaya sanadii 2020 waa 2016 doorashadii ka dhaceysay magaalada Cadaado ayuu ku jiray guddiga. marka waa nin aan inta badan siyaasi weyn oo caan oo deegaanka kama ahayn, laakiin marka laga hadlayo guddigaas 2020 waa 2016 oo ku jiray oo galmudug doorashadii ka dhaceysay, iyo sidoo kale kadib hada doorashadii uusan ka dhex maqnayn, deegaanadii uusan ka dhex maqnayn, uu dhex taagnaa, dhaqaalanin haysto oo ahaa hadda awood u yeeshay inuu dhaqaalihiisa ku himli karo. saaxiib weyn uu leeyahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo saraakiil kale iyo askar badan, iyo wuxuu wataa dad badan oo madaxa iyo xildhibaano iyo senatarana way barataarayaan. marka liibaan waxaad moodaa inay garbihiisa dhinaca dowladda ka buuxaan. dhinaca deegaanka waa laga yaabaa in looga saameyn badan yahay, aslanna isjiid uu iska jiro, oo waxaan la filayaa liibaan hadduu noqdo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug inuu mar kale soo cusboonaan doono jiid culus oo dhinaca galmuduga. lala socota xilligii xaaf uu noqdo madaxweynaha, reer Cadaado waxay ku qasbeen xaaf inuu hawada sare maro, waa loo diiday dhulka inuu maro. sida muuqatana hadda liibaan ayay suurtagal tahay inay reer Cadaado mar kale ku celiyaan qaanuunkii ahaa cirka mar dhulka mari meeyay. saad ogtahay gaalkacyo iyo dhuusamareebna waxa u dhexeeya waa Cadaado. marka waa la eegi doonaa jihada cusub ee aada galmudug, laakiin liibaan nin hore siyaasadda aada loogu yaqaano maahan, laakiin meelaha ayuu kasoo shaqeeyay. haddii aan galmudug intaa kaga tagno, xiisad ayaa laga soo sheegayaa dhinaca Puntland baryahana ka taagnayd, laakiin hadda waxaa la sheegayaa in laba ciidan oo kala taabacsan Siciid Daney iyo taliye Jimcaale inay isku hor fadhiyaan gobolka Bari. maxaan ka ognahay xogahaas? saad ogtahay ama xogta deegaanka ka jirta waxay tahay maalinta beriya waxaa la qorsheynayaa in generaal Jimcaale uu kasoo dego laafcaanood oo halkaas uu tago. ciidamo BSF ayaa kasoo baxay deegaano dhowra oo kamid tahay gaalkacyo, boosaaso, soo baxaan. suurtaagyo badan ayaa jira, culays badan ayaa hortaagan. dani wuxuu danaynayaa inaan sida maamuuska intaas leeg aan loo sameynin generaal Jimcaale. hadalla kala soo baxayo oo sheegay inaan marnaba la aqbali karin inuu Jimcaale yimaado deegaanada Puntland, laakiin Jimcaale laftigiisa hadla ayaa sheegay inuusan marnaba uga heebeysan doonin inuu tago magaalada Garowe iyo qaybtii 54aadba Siciid Cabdilaahi Dani. wuxuuna sheegay inuu ku kalsoon yahay inuu deegaanadaasi tegi karo, hawsheedana uu qaban karo. midda kale xusuusta mudana waxay tahay maalin walba waxaa la arkayaa ciidamo cusub kuwaasoo ku dhawaaqaya inay ciidanka xoogga dalka kamid noqonayaan. arrinta isweydiinta mudana waxay tahay, saad ogtahay waxay leedahay dowladda federaalka ee Soomaaliya sektarro badan ama qaybo badan oo ciidamadu ay leeyihiin. saa la socota gobolada dhexe gaar ahaan magaalada dhuusamareeb waxaa ku taala qaybta 21aad. waayihii dambe Hirshabelle ayaa laga soo jaray 21aad. saad ogtahay waxay ahayd Jowhar ilaa iyo inta laga gaara gaalkacyo, laakiin hadda waa laga jaray Hirshabelle, oo Hirshabelle waxaa loo sameeyey qayb ilaa 27aad. 6aad ogtahay inay Jubbaland iyo 43aad iyo dhammaan ay ku kala yaalaan. dhammaantood halkaas waxaa ku sugan ciidamadii dowladda federaalka ee Soomaaliya ee militariga. laakiin Puntland saa ogtahay qaybtana 54aad muddo dheer iyo dansaneed sababo la xiriira inay iska ilaalinayeen in ciidamada dowladdu ay faraha la galaan. waayo hadda waxaad dareemi kartaa culayska badan ee qoorqoor iyo Cali Guulaawe iyo lafta gareen saaran. waxaa qaybka ciidamo ma ay haystaan iyaga, ciidamada militariga, kuwa booliiska, kuwa nabad sugidda, haramcadka, gorgorka, qayb walba ciidanka Soomaaliya ayaa dhuusamareeb xarun ku leh, oo baydhabo xarun ku leh, oo Jowhar xarun ku leh. ciidamada oo daraawiishleeda ayay leeyihiin. maamulada keliya xoogaa laga yaaba inay ciidamo gaara leeyihiin oo badan waxay ahaayeen Jubbaland iyo Puntland. marka Puntland haddaad moodaa in culayska ugu badnaa ay saarayso dowladdu, waana culays xoogan oo siyaasadeed oo la doonayo iskoorkaas ay haystaan Puntland kulley xasan sheekh inuu meesha ka wareejiyo. sida muuqatana dadka deegaanka hadda way ku kala qaybsan yihiin. arrintan mid xasan sheekh kaliya wadi kara ma ahane, xubnihii siyaasiyiinta ee deegaanka kasoo jeeday ayaa hawshani karkarinaya oo dhinacooda ka wada. miho waxay kadib midaan aan gela midaan sameynaa oo waa hagaag daawadayaal. intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeena xulashada wararka oo ku dul istaagnay waraysiga gaarka ah ee Cabdiraxiin aan kala yeelanay arrimaha koonfurta ee Soomaaliya, qaasatan ciidanka kusoo goostay Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen.